caawa waxaa magaalada Paris ka furmay ciyaarihii Olombikada adduunka 2024 halkan aad arkaysaan waa Paris Tour oo ay joogaan dhammaan madaxda ciyaartoyda caanka ah kooxaha kala duwan ee ciyaartoyda caalamka qaarkood waxaa halkan ka muuqday caawa ciyaartoy kasoo qayb galay wareegyo badan sida tenniska cagta iyo kubadaha kolayga kale ee kuwaasoo qaatay bilada dahab iyo maar iyo qalin isugu jira hadda ka hor qaar shaqada ka fariistay sida Zinedine Zidane oo hadda tababar ah ayaa caawa halkan ku sugan madax sarsare Olombikada adduunka ka mid ah madaxda dalka Faransiiska madaxda guddiga Olombikada caalamka gaar ahaan Faransiiska waa qalanjo Paris idinka salaamayso idin la habeen wanaagsan waa qayb ka mid ah xafladihii caawa ka dhacayay magaalada Paris ciyaartoydii rug cadaaga ah ayaa halkan ku sugan iyagoo furaya ciyaaraha xafladda caawa Paris ka dhacaysa waxaa hadda xafladda jooga ciyaartoydii hore ee biladaha dahabka ah u soo ciyaaray dalka Faransiiska iyo ciyaartoyda caalamka hase yeeshee si rasmi ayay u furayeen caawa halkan ay joogna waa Paris xafladda oo ka dhacaysa hareeraha webiga la Seine iyo Tour Eiffel taalada caanka ah ee Paris waa qalanjo idinka salaamaysa idin la habeen wanaagsan caawa iyo Paris waa habeen roob da'aya aadna u qurux badan tahay magaalada halkanina waa Tour Eiffel orodada caanka ah ayaa caawa ka soo qayb galay Parisna waxay caawa diyaar u tahay in ay soo dhaweyso dhammaan ciyaartoyda caalamka ka kala socda habeen wanaagsan ayaa mar kale idin leeyahay waa qalanjo Paris idinka salaamaysa waa ciyaarihii Olombikada adduunka ee 2024 ninkaas aad arkaysaan waa ciyaartoygii caanka ahaa Zinedine Zidane oo ciyaari jiray Faransa sidoo kale ciyaartoy far badan ayaa ka soo qayb galaysa xafladan Tour Eiffel lagu qabtay waa ciyaarihii ugu caansanaa ee caalamka soo mara 100 sano Zinedine Zidane ciyaaraha hadda uu ka fariistay laakiin waa tababare kooxaha caalamka ka mid ah caawa ayuu si rasmi ah u furmay ciyaaraha Olombikada adduunka Soomaaliyana way ka soo qayb gashay Djibouti sidoo kale wadamada dariska Afrika Yurub Aasiya si official caawa wuxuu ugu furmayaa magaalada Paris ka furmay xaflado kala duwan lagu qabtay hareeraha Paris sida loo ogyahay webi ayaa ku wareegsan ciyaartoyda caalamka oo dooman saaran ayaa lagu soo bandhigay iyagoo muujinaya inay ka qayb galayaan ciyaaraha ee sanadkan 2024 waa qadji qalanjo oo idin salaamaysa idin leh habeen wanaagsan
باريس ayaan idinka salaamayaa iyo cayaarihii 2024 Olympic Paris waa cayaarihii Olympikada adduunka ee 2024 ninkaas aad arkaysaan waa ciyaartooygii caanka ahaa Zinedine Zidane oo ciyaari jiray Faransa sidoo kale ciyaartooy far badan ayaa ka soo qayb galaysa xafladan turafeelka lagu qabtay waa ciyaarihii ugu caansanaa ee caalamka soo mara 100 sano Zinedine Zidane ciyaaraha hadda wuu ka fariistay laakiin waa tababare kooxaha caalamka ka mid ah ayuu si rasmi ah u furmay ciyaaraha Olympikada adduunka Soomaaliya way ka soo qayb gashay Djibouti sidoo kale wadamada dariska Afrika Yurub Aasiya si official wax ugu furmayaa magaalada Paris ka furmay xaflado kala duwan lagu qabtay hareeraha Paris sida loo ogyahay webi ayaa ku wareegsan ciyaartooyda caalamka oo dooman saaran ayaa lagu soo bandhigay iyagoo muujinaya inay ka qayb galayaan ciyaaraha ee sanadkan 2024 باقي جقلن جو oo idin salaamaysa idin leh habeen wanaagsan Paris ayaan idinka salaamayaa iyo ciyaarihii 2024 Olympic Paris